بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصاحبكي عرفاية kusoo dhawaada cashirkii labaad ee barashada MS Word. Cashirkeena labaad wuxuu ku saabsan yahay editing text qoraalka in wax laga bedelo, cut oo loo soo gaabin doono Ctrl X, copy oo shortcutkeedu uu yahay Ctrl C, paste oo markaa shortcutkeedu uu yahay Ctrl V, undo oo loo soo gaabin doono Ctrl Z, redo oo loo gaabiyo ama loo soo gaabin doono Ctrl Y, find Ctrl F, replace Ctrl H. Okay, waxaan samayn doonaa qoraal aan ku practice gareyno ayaan halkan soo gashanaynaa. Waxaan qoraynaa equal run, waxaan qoraynaa shift 9 shift 0 intaan leenahay marka sidaad aragtaan qoraal ayaa noo soo galay. Qoraalkan ayaan ku practice gareyn doonaa marka. Okay, haddaan ku horumarno cut, waxaad ogaataa markasta qoraal aad wax ka bedelayso waa inaad highlight saartaa ama aad doorataa qoraalka aad doonayso inaad wax ka bedesho. Tusaalaha hadda qoraalkan waan select gareeyay. Selection markaad samaynaysid waxaad qabanaysaa muuskaaga left click ayaad qabanaysaa, kadib sidaan ayaad dhinaca markaa midig ayaad u jiidaysaa markaa. Okay, cut markaan samaynayno halkan ayaan tegaynaa, kadib waxaan dhahaynaa cut. Waa kaa qoraalkii hadda wuu go'ay. Qoraalkii aan cut gareeyay. Cutka marka waa goyn caadi oo jaritaan waa qoraalkii waan jiray. Okay, cut markaan sameeyo qoraalka hadda aan cut gareeyay waan soo celin karaa. Waxaan ka soo celin karaa undo inaan sameeyo. Undo marka waxaan tegayaa falaartan u jeedo dhanka bidix, undo ayaa la dhahaa sidaad aragto, undo ayaa ku qoran oo loo soo gaabiyo undo cut. Qoraalkii aan cut gareeyay soo celi ayuu ula jeedaa oo loo soo gaabiyo Ctrl Z. Undo markaan taabto waa qoraalkii ayaa sidiis igu soo laabanaa. Marka cut samaynayso waxaan dhahnay qoraalka waa dooranaysaa. Marka sidaa u doorato selection aad ku samayso waxaad tegaysaa meeshan markaa ay qoran tahay cut ama maqaska calaamadda saaran, kadib waa cut gareynaysaa. Haddii aad doonto inaad soo celiso waxaan isticmaalaynaa undo oo ah halkaan falaartan ayaan click siinaynaa, kadib qoraalka saas ayuu noo soo laabanaya. Hadda waxaan baranay sida loo cut gareeyo iyo sida undo loo sameeyo. Cut markaad samaynaysid control markaa waxaad isticmaali kartaa shortcut saan qoraalka u dooro, kadib waxaad dooranaysaa Ctrl X ayaad dooran doontaa. Qoraalkan dooranayaa, kadib waxaan dooranayaa keyboardka ayaan qabanayaa Ctrl X. waa ka waan cut gareeyay. Qoraalkii caadi ayaan cut gareeyay. Okay, inaan soo celiyo ayaan u baahanahay undo ayaan isticmaalayaa. Waxaan isticmaali doonaa undo oo loo soo gaabiyo Ctrl Z. Ctrl aan qabanayaa keyboardka, adan Z ayaan taabanayaa. Qoraalka ayaa si toos igu soo laabanaya. Okay, waxaan ugu xigaa copy. Copy markaad samaynaysid qoraalka ayaa dooranaysaa marka koowaad. Qoraalka markaad doorato kadib waxaad aadi doontaa meeshan ay qoran tahay copy. Click markaad siiso qoraalka ku copy gareysan yahay. Qoraalkaaga caadi ayuu kugu copy gareysan yahay. Okay, qoraalkii aan soo copyyeynay ayaan rabaa inaan paste gareyno. Qalinka meel click ku sii, kadib waxaad samaynaysaa paste ayaad tegaysaa. Paste meesha ay qoran tahay ayaad click siinaysaa. Waa qoraalka aad soo copyyeysay halkan ayuu kuu soo dhigayaa. Haddii aan ka laaban rabona sidii hore aan soo sheegnay waxaan isticmaalaynaa undo ayaan isticmaalaynaa. Okay, qaab kale loo paste gareeyo ayaa jirta qoraalka oo anaga isticmaalayna Ctrl V. Ctrl aad qabanaysaa, kadib V ayaad dooranaysaa. qaabkaas ayaad u paste gareyn doontaa. Haddii qoraalka aad paste gareysay ama aad marka halka dhigtay inaad ka laabato aad rabto waxaad isticmaalaysaa undo ayaad isticmaalaysaa ama Ctrl Z. Okay, redo maxay tahay marka? Redo waa qoraalkii hadda baxay inaan soo celiyo. Waa ka redo ayaan leeyahay. Undo marka soo celi waayo, redona waxaa waaye kasii soco waaye marka meesha kasii wad waaye. Okay, hadda waxaan baranay cut waan baranay, copy waan baranay, sidoo kale waxaan baranay cut copy, paste, undo, redo. Inta waan baranay. Find ayaa noogu xigta. Find waxaa loola jeedaa inaad raadiso xaraf ka mid ah qoraaladan kuu qoran. Haddii aad inaad raadiso aad rabto waxaad tegaysaa home ayaad tegaysaa, kadib waxaad ku dhufanaysaa meeshan find ay ku qoran tahay, kadib advanced find ayaad sii taabanaysaa. Adin xarafka aad raadinaysid ayaa halkan ku qoraysaa. Tusaalaha hadda waxaan raadinayaa a ayaan raadinayaa, kadib waxaan leeyahay highlight all, kulli calaamad isaar wixii a ah. Kulliyaan leeyahay fiiri wax kasto a ah ayaa waxaa la calaamad isaaray. Okay, waxaan hartay replace. Replace home ayaad tegaysaa, kadib replace waatan find ayay ka hooseysaa. Then a ayaan bedeli doonaa. Waxaan ku bedeli doonaa s ayaan ku bedeli doonaa. Kadib waxaan leeyahay replace all, kulli bedel. Wuxuu ku leeyahay waxa lagu sameeyay 48 bedel ayaa lagu sameeyay. Okay, ayaan leeyahay kadib close. Meel kasta oo ay ku jirtay s ayaa la u bedelsaa aragtid, s ayaa la u bedelay. Okay, saan u laabto waxaan isticmaali karaa undo ayaan isticmaali karaa. Waa ka laabtay
sideeda ayuu ugu soo laabtay. Fine waxay leedahay shortcut, sidoo kale replace waxay leedahay shortcut. Fine marka shortcutkeeda wuxuu noqonayaa control F ayuu noqonayaa, control F. Haddii hadda control aan qabto kadib F aan doorto wuxuu keenayaa fiiri fine ayuu leeyahay, raadi ayuu leeyahay, ayuu ii keenayaa. Sidoo kale waxaa shortcut leh replace, oo replace shortcutkeeda wuxuu noqonaa control aan qabanaya kadib H ayaan dooranayaa. Waa kaa bed ayuu leeyahay, ma isku bedelaysaa haddii sidii hadda leeyahay haddii aan marka replace all aan dhaho toos ayuu bedeli doonaa. Wuxuu leeyahay waxaa lagu sameeyey 48 bedel ayaa lagu sameeyey. Kadib close ayaan leeyahay, hadin bedelaadka hadda uma baahni, waxaan taabanayaa control Z. casharkeena labaad halkaas ayuu inoogu joogayaa. Haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir, casharo badan ayaa soo socdaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.